munaasabadan oo ay ka qayb galeen nabadoonno, culimaa udiin, duqeyda dhaqanka, saraakiil dhinaca ammaanka ah iyo ururada bulshada gaar ahaan ururka haweenka iyo kan dhallinyarada ayay ujeeddadeedu ahayd bandhig lagu soo bandhigayay musharax xildhibaan mudane daahir warsame fiidow oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed islamarkaana ah waayejoog in badan ka warqaba xaaladda dalka. munaasabadan oo in badan dadkii ka hadlay ay si weyn ula dhaceen musharaxa ayaa waxaa ugu horreyntii ka hadlay nabadoon cabdiraxmaan dhicisow jimcaale oo ka mahad celiyey sida wanaagsan ee looga soo qayb galay islamarkaana loo ajiibay dalabkii beesha in looga soo qayb galo gogashan si ay arrintan musharaxnimada ah u soo bandhigaan. maadaama nabadoonkii ahay gabar madaxweyne kolba in badan baan haddii ilaahay kuu roon yahay soo taagnayn marka insha allahu tacaala sanadkan waxaan u malaynaa inuu sanadkeennii yahay wax badanaan haddii ilaahay kuu roon yahay ayaan doorannay gabar madaxweyne waxaan ka rajaynaynaa sanadkan inuu haddii ilaahay kuu roon yahay unala guntado waa naga wada dhexeeyaa hooho wixii ilaahay qoray siduu hadda akhriyey sheekhu qul illaahumma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa mulkiga ilaahay baa iska leh cidduu doonuuna siiyaa watanzicu lmulka miman tashaa cidduu doonana ilaahay wuu ka siibaa haddeer horta nin baa ku fadhiyo kursigaan soo doonnay oon tolka weydiisanayno weli ninkii aan siinaa ku fadhiyo laakiin waxaan ka wadnaa markuu waktigiisu dhammaado warbal hana la ogaado warkeenu waa warkaas jazaakum allahu khayran yaan si kalena loo qaadanin waxaan idin leeyahay sidaad noo soo ajiibteen oo wanaagga badan oo quruxda badan oo hadalkeennii aan idiin soo gudbinnay iyo dalabkeennii iyo codsigeennii aad u soo ajiibteen waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayran aad baad u mahadsantihiin waanan idiga filanaynay intaa kadib waxaan isleeyahay rag baa iiga dambeeya warka furitaankan lahaa laakiin sadar muuqda su-aal ka dhan baa la yidhi intaas idiin dhaafin maayo. sidoo kale nabadoonnadii iyo cuqaashii kale iyaguna munaasabadda ka hadlay oo in badan ammaanay doorka muhiimka ah ee uu qaadan karo musharaxa xildhibaan ayaa waxa ay u rajeeyeen guul iyagoo isgarab taagay dhammaantoodna ku ayiday dalabkiisa. salaanka bacdi waxaan idinka mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad noo soo ajiibteen ee noo taxgeliseen ee noogu timaadeenna waa idinka mahad celinayaa. meesha ila yibar in muddaa waxay ku taamaysay ay rabtay wax walaalaha tobankooda ka dhexeeya inay wax ka helaan intaa dad unbaa soo qaadan jiray dhinacooda ka soo dhisi jiraan maanta waxay rabaan inaan warka badi ma rabo waa laga sii dambaa dadku waa badaya waqti gaabanaa la joogaa waxaan rabaa markii inaan warkii iska soo gaabiyo tobankooda meeshaa fadhiso rag iyo dumarba siday u leeyihiin waxay rabaan ila yibar maantay inay musharaxa xildhibaannimo la siiyo ee yibar madaxweyne sida walaalkii cabdi uu sheegay waa runtiis ninaa ku fadhiyo kursigaas nin ku fadhiya ka dambaacin mayno laakiin mar haddii doorasha dalka ka bilaabatay doorasha timid waxaa imaanaya sijiid iyo doorasho in lasoo sharxaa imaanayso ila marka waxaan u malaynayaa gogashii ugu horreysay tobankooda ay dhigaan inay tahay oo nin naga horreeya uusan jiro codsigaas marka maanta waxaan codsanaynaa oo yibar madaxweynaha ka rabnaa kursigaas walaalaha nagala dhexeeyo ilana hore uu wax uga dhiibi jiray in maanta nala siiyo bacdamaa dhahay qoladii ugu horreysay oo soo codsatay kursigaa in nala siiyo oo yibar madaxweyne la siiyo intaasaa idinka rabnaa sida idinka muuqata meeshana waxaa la yidhi sadar muuqdaa su-aal ka dhale ninka odaga la yidhahde muxuu ahay waayo arigani ah ilaa dowladda maxamed saad barla soo shaqayn jiray oo nin doctora ah in la siiyo ayaa doonina daahir warsame fiidow maalinta xigtana inay ansaxdaan ilaahay ka rajaynayaa soo xildhibaanana inaan halkaan u soo korno oon ku soo dhaweynan waan u rajaynaynaa hadda waxse bilaaw cusub bilaaw horo allaha fududeeyo daahir waa beri kaftankayna waa kaas daahir warsamo waa sug waxaan waa nin walaala saaxiibaan nahay waa nin berrito dad badan oo idinka qabta loo helaa anigaas hadda abukar maxamed buuraa la yidhaah naftayda inaan weli qudbasiro ku maqanahaa laga yaabaa ho xildhibaanaa rabaa naftayda soo ira waa laga yaabaa ho ano meelaha taagan ay aragtaan waa suuragal kursigaan xoogaa beryaan waa laisku mamaceeyo hayaa
aniga hadda dhowrkii sano xasan sheekh laga soo bilaabo labada jeer iyo farmaajo markii soo dhawaato yurubaan aadi jiray familkii iyo asxaabta waxaa dhihi jiray iga dhaaf sanadkan waa lay bixinayahay moogi waxmaan maaganahay ma waxbaan gaadooha ma qudbisira wax ku rabaa maaha marka waxaan idiin ballan qaadaynaa laakiin haddii daahir warsame oo ku soo baxo xildhibaan yabar madaxweyne oo xildhibaan xawaadlaah oo xildhibaan soomaaliyeed kala dadka ugu horeeyo oo wixii laga raba ka doonaa oo loo diraa aan koow ka ahay faahfaahintiisa waxaan isleeyahay xildhibaan hore idiin dhameeyey faahfaahin kale uma baahnidin reewaaberi ayagaa maaragtay is sheegay meeshay joogaan iyo hawshooda sanadkanna waxaan isleeyahay waaba sanadkii odayaasho waxaan isleeyahay waa madaxweyne xasan sheekh waa la qayb qaadan kariya aan isleeyahay ninka odaga mafan markaa la soo dhoweeyo si walaalnimo ah oo ay galgacayl ay ku dheehan tahay ha loo ajiibo ha la xumbaaro qalbigana ha lagu qaato calafkuna dee waa meeshiisii qof walba ilaahay wuxuu u calfu qaadanayaa laakiin waxaa muhiima sidii uu u sheegay xildhibaan hore yacni xasannimo yaan laytum inuu yidhi ma fahamta laakiin waxa laygu leeyahay xaqa ha laytum uu dhahay soo ma yabar madaxweynow anigu horta odayaasha ka mid ah shiibalcadaa soo gaaray shiibalcad asoo la dhukoon ah u dhintay qaraar iyo macaan iyo weys iyo caalxanaan waa la soo mareen u raaci maa daahir arreeyo laba magac wata magac waa abtigiis arreeya la yidhaah daahir warsame fiidowna waa la yidhaah ninkaas wuxuu noqonaa hadduu calaf u galo nabadoonka yabar madaxweyne sagaalaad lixdankii haddii laga soo qaado shiibalcad lixnabaanada shiibalcad ilaa daahir waa sagaal waxaa maanta gobol noo dhigay beelweynta iidlo yabar oo ka mida 10ka yabar daahir wuxuu yiri ninka la yiraahdo saalaam wuxuu yiri habar jibade horta ha nagu dhihin gibiga inaan ma rabna inaan hadii la qaadne hadda hadii la goonigu faqiiqo intaas marka habar jibade ku sheegir waa wada qaadayna xaq uu leeyahay inaan qaadna una xaq u leeyahay iidlana ayaantan hadda waxay ahaayeen nimanka hormuudka ah oo yabar mideeyo isku keenayo hadda kaalin mug iyo miisaan leh yabar ku dhaxdiis ku leeyihiin waxaan yabar madaxweyne leeyahay daahir warsame fiidow oo maanta ay noo keeneen hal la qaado maanta waa maalin farxadeed waa maalin weyn waa maalin qiimo badan waa maalin maxaan ku yiraahdaa xasuus mudan nabadoon saalax waxoogaa kaftan u riday oo yiri maxaan ku yiraahdaa jibada waa waxoogaa waa faaneen maanta sharafay noo tahay horta annaga maxaan ku yiraahdaa markii yabar kale laga yimaado in maanta curudkii jibada maanta maxaan ku yiraahdaa godasho fidiyay aad iyo horta farxad noogu tahay waxaan leenahay marka aan garab istaagno aan maxaan ku yiraahdaa madaxa saarano qofku yahay qof ahaan kulley waana laga sheekay taariikhdiisa waana wada naqaanaa gaariga ninkii wada jiray garana loo dhiibaa la yiri baasho ninkii wada jiray garana loo dhiibay taagan tahay inta iga horeysay siday maxaan ku yiraahdaa aqlibada iyo kalsoonida iyo wanaagga ay garab istaaganahay kalsoonitaas lamadii in ka sii badan garab istaaganahay waxaan leenahay aan garab istaagno kaliya maahayna waxaan rabaa anigana waliba codsi yar raaciyo codsigan raacana wuxuu yahay sida nabadoon saalax sheegay yabarku waa shan isku hooyaa iyo shan kala baha shanta isku hooyaa curadkoodii wuxuu gartay waxaa la yiri nin weyn oo sad nin yar oo sabar wuxuu gartay walaalihii ka yareeray inay bal markaan ayaga ay horta maxaan ku raday waxeelaan oo asugu baadama uu ninka weynaayay waxoogaa asugu dambeeyo waxa waaye daahir arey hadda aniga abtigiisaan ahay kulley haddaan magaciisa saddexaad aan meesha ku arkay ka hor aniga daahir arey aan aqooni jiray marka abtigiisaan ahay waxa waaye aad ayaan ugu ducaynaynaa ha loo duceeyaan leenahay si sharaf leh ha loo soo dhaweeyo codsigiisa ha la aqbalo maanta sanadkan kor ha loo qaadaan leenahay hadduu ilaahay yidhaahdo daahir arey daahir warsame fiidow yaana qaldamine marka calaa ayi xaal waxaan leeyahay kor ha loo qaado munaasabadda laba qaybood isugu jirtaa qayb waa duco
qaybna waa taageero aniga sidaan u fahmay marka meesha ka biyeey labadaas qoloba halkan ayaa ka rabaa wuxuu yidhi nin la yidhaahdo naxariista cabdibaajenti buula gurtaa waxaa ka jiri jiray 7 kursi asaga marka xisbigii cabdulqaadir iyo cilmi axmed ku warnaayeen oo lambar 7 ka yahay nin waa la isku xeji jiray magacyada la isku xeji jiray hadduu ninkaa u dhinto haddii dhib gaaro hadduu howl gudo waayo marka wuxuu yidhi 7 kursi yabar madaxweynihii kamaajuusta ku yihiin 7 kursi aniga lagu ficnaanayo hadda waaba lagu yelihiina 10 meeloo ka dhigo oo 10kaasaan kala qaadana horta lagu ficnaanayo ninka labaad salaan kadib aadaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb gala maanta xafladda musharax daahir warsamo fiidow oo maanta isi soo bandhigay oo xafladdan derbigeeda ku qoran ilaaha tawfiiqda waafajiyey markuu soo maray iidle markuu soo maray oo ibar ku soo xejiyey waa la sii wadi doonaa wixii dhiman oo nagala dhaxayso tabeelahaas aad arkaysiin waxaa ku sawiran waxa waaye musharax xildhibaan waa beesha ibar madaxweyne waa 10 lafood waxaana la rabaa dadka maanta hoolkan ku jiro keliya ma aha ibar madaxweyne ninka wax doonaya iyo ninka hadda haaya iyo kan u soo socdaba shanta Soomaaliyeed iyo shanta qaaradood ayay degan yihiin dadkii qofkii aan ficil ahayna dadka soo saari lahay waa dadkan tan kaleetana munaafaqad ma ficlo qofka hadduu naaficin xitaa inaan idhaahdo raallahaw waa loo baahan yahay laakiin halkan hadda maanta waxaan u nimiday walaalkay musharax daahir warsame ibar madaxweyne codkiisu soo doontay hadday sanduuq tahay iyo hadday baalkii tahayna intaan iyo inta kaleeto oo laga soo bilaabay Itoobiya ilaa iyo koonfursalkeeda deegaanka ka dhaxaysa ayuu cod ka rabaa waana la siinayaa insha Allah dadku badiyaan warkuwaas ka kor dhacaa mid saxana waa la sheegaa mid haddii la dabagalo qarax keenaana waa soo baxaa dadka xasarada qaadaysa marka horta daahir muhiimad gaara uu noo leeyahay middan oo waa ibar madaxweyne kursiguna xaquuqda qodkiisa ka leeyahay haddana waa horaan loo yiri waa nin curad oo jibada curad u ah oo iidla ibar la yiraa taas haddii laga soo gudbo wax badan oo kale oo mudnaan ku leeyahay uu qabtay waa uu qabtay xogaa siyaasadda arrimaha haddii bulshada loo fiiriyo siyaasaddu mugdiga bagashay maanta albaabkii waxaa furmay oo martiqaadyada iyo wax soo doonista furmeen daahiraa noo furay allah barakeeyo xildhibaanka waxaan leenahay waa guulaysanaysaa markii albaab laga xirnaa noo furtay waxaan la soo dabahayaa laakiin sida saaxiibaday sheegeen adiga dambiina lagu hayaaho abuukar maxamuud gooro xildhibaankii iyo nabadoon muuse iyo rag badanaa waxay yidhaheen anigaa dambiinka anikaan waxuu halleeha loo yimaado marka ragaad waay ku imaan doono igu kawiyaan waay ku imaan doono ragaada kuusano waxaa laga rabaa nin sidaasoo kale u dambiintay in la helo ayaga waa laga rabaa laakiin hadda waxaan leeyahay inteena joogno dhammaanteen bacdamaa gacanta la taagay ninkaas gowsdameedka inaan ku qabanno oo aan taageerno oon la shaqayno soo kuma ballamin waxa weeyaan u soo dhigtay beesha ibar madaxweyne run ahaantii aniga haddaan dhalinyaro nahay aadaan usoo dhaweynaynaa musharaxa halkan ka codsaday in la siiyo codka waxaana ka doonaynaa musharaxaasi inuu noqdo kii isbeddelkeena horay ayaan usoo rafaadnay dhibta ugu badan waxay ku dhacdana waxaan nahay dhalinyartii ayaan nahay maadaama ay yihiin dhalinyaradu jiilka soo koraayo doonayo meelo badan inay wax ka qabtaan ama wax ay ka helaan u baahan cid waxawaaye hormuud u noqoto waxaan u baahannahay kursigaan inuu noqdo kursi kuraastii hore aan la mid noqonin
ورهانتي أنا مركان واحد عكشة وإنك ما أنت عطسنا يعني عطك للسيو سفي عن سكوما أنا برلاك أنت يرى كاركي وحياوي يراي وعن إسقاف صني iyo odayaasha xoogaa yaroo alasha shaqeeyey iyo asaga wax looga baabaahaday oo tolka dhexdiisa ahay waayo waxay ahayd ninkii lagu farxay ahayd markii hebel la yidhaahdo hebel noowaca markii la yidhaahdo ninkii lagu farxaye meeshaas marka waxaa ka muuqato inuu yahay nin waxa waaye reerkii u dhaganugul nin waxa weeye reerkii waa inuu la qabto jecel walaalaha iida yabar ee gobasha dhigay goblo fara badan ayay hore dhigeen oo yabar ay ku midaynayeen waxaa salayaa gobashaana goblihii hore waa ka duwan tahay wax yabar waxbayna ka dhaxeeya oo ay wax ka leeyihiin ee haddana costeen inaan siino kursigaas haddii ay ku leeyahay waxbayna yaa madal iyo gadaal loo noqonay la gelin yabar waxbayna xamar oo gobolka banaadir oo jooga waa caasimadii oo ballan qaaday intii hadasho waa ballan qaaday yaa dib loo noqonay gadaal tagi waa la iswarsanay ma jirto saddex qodob waxa lagu siiyaan la kursiga walaalaha yabar marka koowaad inuu daahir u yahay inuu waayo araga muddo soo shaqeeyay yabar madaxweyne wax badan u qabtay ilaa iyo laba ku dowladda cabdullaahi zubilaa sheekh shariif iyo dalka joogay ayadoo xildhibaano jiraan wax badan oo qaban jira marka koowaad waa arrimahaas lagu siiyey marka walaalaha yabar madaxweyne oo iida yabar weli kursiga ma aha kursi markii ugu horeysa waayo marar badan ma imaan kabkii yargaabadii hore waxayna qaato waxay sanadka daana la siin ujuuraana noqonayna lagama sheegin ayaga oo waxaas ma dheene gobashana hal la siiyo sanadkan waxa saddexee waa markii koowaad oo ay yiraahdaan haddii la guuro yahay kursigaana la siiyo daahir waa nin aan wada naqaano waa nin soo shaqayn jiray waa nin waayo araga marka gobashaas haddii quruxda badan ay dhigeen awgeed iyo ayagoo markii ugu horreeyey ee codsaday ah intaasaan ku siino waxaa isaguna munaasabadda ka hadlay musharax xildhibaan daahir warsame fiidow oo sheegay sida uu u doonayo inuu ugu tartamo kursiga lambarkiisu yahay hoob 66 ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya marka la gaaro waqtigeeda waxaanu sheegay inuu ka soo bixi karo islamarkaana yaqaano shaqada laga doonayo kursigaasi markay noqoto baarlamaanka federaalka ee dalka iyo sidoo kale beesha iska leh ee uu matalaadeeda doonayo inuu u buuxiyo kursigaasi marka la gaaro waqtigeeda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaad tolkay waxa waaye hamiga qofka bini'aadanka ah wuxuu leeyahay hami iyo ujeedo badan oo indhaha ku sii hayo muddo waa joogay dalkan in badan wax waa dhismadan gacantayda ku dhiso iyo mid kalaba ha noqotee laakiin kalkan aniga soo istaagay waxaana niyeystay inaan hortiina soo istaago oon adiga hortiina soo istaago sidaas daraaddeed aad iyo aad u mahadsantihiin saad u ajiibteen iyo ammaanta aad ii haysiin kulligiin oo hadda ammaanta in alle intii meeshaa soo istaagtoon kolley ammaantayda iyo waxay tilmaamo yaryar oo la leeyahay tilmaamaya aniga iskuma malaynayn inaan saas ahay waxaan islahay waa beri waa tahay meelahaas laguma yaqaan derbina laguma geysan laakiin haddii magacaygaba aad maaragtay dad odayaalahood hore u tiqin inay tilmaamayaan in ay yihiin kuwii u ulay kara gacanta i qaba kara i toosi kara intiinaas yar iyo weyn mid yar iyo mid weyn ayaa aniga i toosi kara waa dhaqanka aan leeyahay aniga gabar iyo wiil mar hadday ama magac ii sheegtaan ama midka guud oo xawaadle ii sheegtaan aniga kalama saaro horta haddaa nin odayahay igula kaftamaayo wuxuu yidhi waa ku naqaanaa daahir laakiin ma taqaanid kan hoos kuu xiga iyo kan xagga kaa jira ma taqaanid aniga ninkaad qofka hadduu magaca guud oo sheegto garabkaa qabsadaa hora u wataa waxaan qabo karan waa u qofka hadda maanta laakiin mar hadday noqotay geedda gambar ha la tago hoos hoosay u dhacday hoos hoostiina maanta ayaad hor taagana marka sidaas daraaddeed waa mahadsantihiin wax ii diidan ma ii muuqanin waxba ay la jeceshihiin maanta anaa taagan berri mid kaloo walaalkaya soo istaaga asigana hamigu ku jiro oo wax sheegana ama wax dalbana
asigana xaqo u leeyahay kee waxa waaye waa wax naga wada dhexeeya dhaxalka aabbo waa la dhaxlaa waa la iskugu yimaada marka wax walba ayagoo raatii ilaahay ay ku xiran tahay haddana aad iyo aad mahadnaq weyn baan idii hayaa waa mahadsantihiin xilligeeda markii la gaaro iyo howlaha kaleeto hadda waqtinoo howlihii inta badan waa noo dhiman yihiin aan geli doono insha allah waa isla socon doonaa wixii hadda ka dambeeya waxaan u malaynayaa inaan gurbaanka awal kor ayaa ka garaaci jiray hoos inaan ka garaaci doono adinkiisa dhawaa doono maaragta marka saas daraaddeed insha allah khayr iyo barwaaqo wixii ilaahay qoraan la helaa laakiin dadaalkii inay maaragta kole aad u taagan tihiin waad ii sheegteen waana idinka mahadcelinayaa si kastaba dadkii waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a gabdhihii ka tirsanaa ururada haweenka beesha oo ka qayb galay kulankan kuwaasoo isgarab taagay musharaxa xildhibaan islamarkaana ayiday sida dhammaanba dadkii ka soo qayb galay ay iyaguna u ayidayeen gabal dhigaya gaaraasha wax loo yiraa gabayga goosgoosa gacaalaanu tiirinayaa gogosha waxa noo dhigo gees walbaba camiray gogosha waxa noo dhigo gees walbaba camiray xilkana goobaya oo aan la gaari karin xilkana goobaya oo aan la gaari karin wagesiyow daahir hareeyo wax gaaradahay wagesiyow daahir hareeyo wax gaaradahay guntu inay siisabohow gaar u doonayaa guntu inay siisabohow gaar u doonayaa abaan la dhigaya hamiga wax laga yiraa daahirow niman caana oo cod lahaa ku dhalay cubbaanada tobanka oday bay cidaadu tahay cubbaanada tobanka oday bay cidaadu tahay cadcad cubbaanada tobanka oday bay cidaadu tahay cadcadka reer iid la yabaar baad ku caaran tahay cid lama joogtido ayagaa ka fadhiya cirfaha cid lama joogtido ayagaa ka fadhiya cirfaha codkana way ku siini haddou caadilkee yiraa codkana way ku siini haddou caadilkee yiraa codsiga way ajiibi midaasayna noqon cidlaada codsiga way ajiibi reerkaaga cududa waay abaa la dhigaya aqliga wax laga yiraa uqaashiya odayadaha agga hora fadhiya uqaashiya odayadaha agga hora fadhiya indhergadariya ugahaas waa u idil yihiin indhergaradiya ugahaas way u idil yihiin amirada reer hawahaad lana kala maqnayn amirada reer hawahaad lana kala maqnayn isirka samatalis hawahaad lan abaaraya isirka samatalis hawahaad lan abaaraya cubbaanada ciise digoo caadi loo yaqaan xildhibaanka soo socdo hadda waa sii lena maadaama uu gulush maanta isaga leeyahay waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow ee reerkooda iyo hor madaxweyne maanta waxaan u malaynaa aniga hor madaxweyne si fiican oo kala aqaanaa kursigaana waa qor isku dhiib ninba maruu soo qabtay niman kalaa rabi doono laakiin warka siduu maanta meesha ku yaallo artidaahir ninkii ugu horreeya oo iidla yabar oo wili kursiga soo qaban yabar madaxweyne xaq lagula waayo marka waxaa idinka codsanayaa kursigaas in lagu sharfo wax laysku maxay helay waa dadku waa ka dhexeeya ehelkuu ka dhexeeya qofkii walaalba markaas yiraahdo waxaan maanta maalinteydii waa horeyna waa u bixi jiray maadaama yabar madaxweyne hore iidla yabar kursiga dadkii dhiibi jiray ay yihiin maantii goosha ayagaa idiin fadhiyo waxaan rajaynayaa in meeshaas muwaafaqo lagu dhiibo
calool fiyoobi lagu dhiibo walaalnimo eelnimo lagu dhiibo insha allahu annagana waan u ducaynaynaa soo dhawo baan leenahay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad munaasabadda oo ay ka muuqatay qabanqaabo aad u heer sarreeya ayaa ugu dambayntii waxa ay ku soo gabagabowday jawi aad u qurux badan oo ay wada faraxsan yihiin dhammaanba ka soo qaybgalayaashii iyo musharaxa intaba